raashinkan quutul duruuriga ah iyo teedhooyinka laga galo qabowga iyo sidoo kale dhaxanta ayaa la gaarsiiyay deegaanka Cabdow Dibile oo qiyaastii 7 kiiloomitir dhanka koonfur bari ka xiga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. deeqda isugu jirta teendhooyinka iyo raashinka waxaa iska soo ururiyay dadka deegaanka Cabdow Dibile oo ku sugan dalka dibadiisa kuwaasi oo soo wakiishay xubno ka mid ah deegaanka oo iyaguna maanta gaarsiiyay deeqdan raashinka iyo teendhooyinka isugu jirta ku dhawaad 180 qoys oo ku dhaqan deegaanka Cabdow Dibile. ururinta deeqda ayaa ka dambeysay kadib markii webiga Shabeelle bishii la soo dhaafay uu ku fatahay deegaanka Cabdow Dibile iyo tuulooyinka hoos yimaada kuwaas oo markii dambana sababay in ay burburaan beerihii dadkan ay tacbanayeen isla markaana ay halka ku waayaan waxyaabihii ay ka soo saaranayeen quutulyoonkooda. dadka u dhashay deegaanka Cabdow Dibile ee ku sugan dalka dibadiisa ayaa markii ay ka war heleen fatahaada webiga Shabeelle uu ka geystay deegaanka waxa ay isku xilqaameen sidii ay u sameyn lahaayeen ururinta deeq ay ugu talagaleen deegaanka taas oo ugu dambeyntii maanta soo gaartay deegaanka Cabdow Dibile. qaar ka mid ah dadkii loo soo wakiishay inay geeyaan raashinka deegaanka Cabdow Dibile ayaa ku wareejiyay odayaasha iyo waxgaradka deegaanka Cabdow Dibile raashinka iyo teendhooyinkii loogu talagalay in la siiyo dadka ku dhaqan deegaanka Cabdow Dibile. Bismillahir Rahmanir Rahim alxamdulillahi rabbil caalamiin. anigoo ah Macalin Cali waxaa maanta deeq soo gaarsiinay taariikhda tahay bisha 9aad 17keedii 2020 hijradina ay tahay bisha 1aad 28keedii 1442 waxaa maanta deeq isku jirto sokor bariis saliid iyo teendho oo noola soo idmaday walaalahayna joogo qurbaha magaalada banaanka ee noogu soo dhiibeen degmada Cabdow Dibile oo ku dhacay fatahaadka wixii guryaha ka dumi iyo wixii beeraha ka barakaciyo roobka biyaha marka insha Allah taala maanta waxaan soo gaarsiinay intaana ujeedaan oo meesha ka muuqdaan oo nolol soo idmaday waxaan wakiilka ah maanta ku wareejirnaa deeqdan mudane Cabdullaahi Jimcaale walaalaha deeqdan oo walaalahood kale u soo dhiibay aad ay u mahadsan yihiin waa 178 qoys qoyskiiba waxaa ku soo aadayso maxaa la dhahaa 3 sili cadee iyo loor oo muxuu ahaa bariis iyo loor sokor half sokor half bariis iyo teendho muxuu ahaa soo gaarsiiyeen walaalahood marka walaalaha waxaan ka codsanayaa dadaalka ay wadaan inay dib muxuu ahaa si laba laabaan dadku waxay u baahan yihiin isbitaal waxay u baahan yihiin iskuul ilmaha waxbarasho u baahan yihiin marka waxaan ka codsanayaa walaalahay mar labaad iyo mar saddexaad inay dadaalkooda halkaas ka sii wadaan kala maanta loo miimaan sida u jeedaan maanta waxaa deeq raashin soo gaarsiinay walaalaheen dhibaatada ama maxay saameynta ku yeeshay fatahaada webiga Shabeelle marka waxaa kaalintan oo maxay Allah subhanahu wa ta'ala ka sokow waxaa mahad gaar oo mahad guud iska leh dadkii maxay walaalaha qaraawada qurba joogta muxsiniinta barnaamijkan ka soo qayb qaatay tuulada Cabdow deeqdii noo lagu soo talagalay waa noo timid waan mahadsantihiin inta meesha joogto oo qaraabo oo naga dheer oo soo dhiibtay waa ka gadoona odayaalkaayno iyo igaartaayno iyo habrooshinkaayno iyo wixii dugsilay kullu waa ka gadoona waan niga qabnaa waxaan igu duceeyaa muraadkiina Allah sahlo muraadkiina Allah sahlo manaafiq Allah niga qabto kor iyo koonfur bari iyo waqooyi miyi jirti Allah nigu amaansado ilaahay idinkiisu oo idinkaayna ahayn siimaha oo soo kulunin waad raxmaan al-hukumiya Cabdullaahi Jimcaale Maxamed waxaan ka mid ahay mas'uuliyiinta tuulada Cabdow Dibile maanta waxaan soo gaartay deeq raashin ah oo ay inoo soo dhiibeen walaalaheen qurbaha jooga oo ka kooban sonkor iyo bariis iyo saliid raashinkaas waxaa loogu talagalay in la siiyo 178 qoys oo ah kuwa ay barakiciyeen biyaha dhibaatada u geysteen walaalaheen waxaan u sheegaynaa inay soo gaartay oo aan kala wareegnay raggii loo soo dhiibay oo aan gacanta ku hayno si aad muuqato waxaan leenahay waa mahadsantihiin 100% walaalaha sharafta leh ee jooga dalka dibadiisa inay u soo gurmadaan walaalahood mar walba waxaan leenahay sida maanta sameeysan oo kale inay noqoto mid macnaha oo noocaas oo kale ay noqoto
yay noqonin midda maanta ugu dambaysa inay ahaanin walaalihiin mar walba waxay idin diyaar yihiin inaad kaalmo u geysataan wax markay dhibaato saanoo kale ay ku dhacdo